hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka ahna gudoomiyaha laga soo doorto deegaanka bartamaha Gaarisa mudane aadan barre ducaale ayaa booqday iskuulka dadka maqal kala ee magaalada Gaarisa wuxuuna gaarsiiyay raashin iyo kuraas nooca waxbarashada ah. xildhibaanka ayaa tilmaamay in ubadka uusan lixaadkooda u dhannayn ay muhiim tahay in loola tacaalo sida kuwa uu lixaadkooda u dhan yahay, wuxuuna meesha ka saaray in aysan jirin farqi u dhaxeeya labada cunug mid kastana uu u baahan yahay inuu akhristo. caruur fara badan oo gaarayaan 156 oo iskoolka sare iyo iskoolka hoosaba ayaan maanta u tagay. waxaan u geeyay kuraasta ay ku fariisan lahaayeen, waxaan kaloo u geeyay raashin, waxaana macallimiinna inaan kordhinaan rabnaa. caruurtan waxay ka imaadeen countiga iyo gobolka waqooyi bari oo idil. caruurtan iskoolada sare oo dhagoolada wuxuu ahaan jiray magaalada Kisumu iyo Karugoya iyo Thika. caruurteena way aadi waayeen intaan iskool uga sameeyay. haddana waxaan ku tala jiraa inaan ummadda culimada muslimiinta Jamia Mosque aan la kaashado oo aan keeno macallin garanayo luqadda ardayda waxba maqlaynin sifa uu u baro maadiga diiniga oo quraanka iyo xadiidka iyo farta iyo dugsiga oo meesha ugu dhigaan iyadana ballan qaaday. dhanka kale gudoomiyaha ayaa ku noocsaday in waalidiinta ilmaha aysan kala xigsanin. waalidkana waxaan ka baryayaa waalidka muslimiinta kan dhagoolka iyo kan lixaadba qabo kudiba waa caruurteena waayo yaa la kala soocin hooyooyinka iyo odayaasha. cunuga dhagahala, cunuga indhahala, cunuga lugahala iyo cunuga lixaad qabo waa isku mid. kudi ilaahay baa na siiyay. wadankana waxaa jiraan dad ka lixaad kala meelo weyn bay gaareen, xogeeya joogto waayo. kuwa dhagoolada waxay jaamacada ka dhigaan jaamacadaha adduunka ugu weyn, kuwa indhoolaha jaamacaday dhigaan. marka waxa weeyo ayag iyo caruurta kale oo caadiga waa isku mid. Mr. Ducaale oo ka hadlay waaxda dhalashooyinka ayaa ku tilmaamay dadka ka shaqeeya waaxdaasi in ay dukaan ahaan u bedeleen. waxaana qayli fara badan iyo cabitaan fara badan ay dhibaatooyin dadweynaha shacabka Gaarisa ay ka sheegteen xafiiska diiwaangelinta dhalashada oo la sheegay inuu noqday xafiis laaluushka iyo musuqmaasuq uu ka socdo oo waalidka iyo dadka la weydiinayo inay bixiyaan 1,000 shilin 2,000 3,000. dhiisiga magaalada iyo county commissioner iyo madaxdana maanta amar waxaan ku siiyay xafiiska ninka mas'uuliyadda loo dhiibay in loogu dhiibin inuu muslimka ku dulmo mada ku dulmo. waxaan leenahay dawladda Jubilee ma ogolaanayso inay musuqmaasuq lagu maamulo adeega dadweynaha loo ugu talagalay. xafiiska waraaqaha dhalashadana ninka qofka ugu weyn ee wadanka oo xafiiskii u yahay Nairobi asagana bari waxaan ugu yeeray xafiiskii baarlamaanka waa inuu dadka meeshan ka shaqeeyaan uu bedelo oo ay dad kale ay keenaan oo dadweynaha diyaar u inay u shaqeeyaan. mana ogolaanayno. shacabkana waxaan ku baraarujin inkana ha ogolaanina inaad nila dulmo inaad lacag bixisiin. markii lacag nila weydiyo lacagta annaga waxaan dooranay xildhibaan aadan ducaale u doonta dhaha.